It's an enormous pleasure and honor to be here today and addressing you all. farxad ayay tahay inaan halkan uga hadalno iskaashiga beesha caalamka iyo Soomaaliya. waxaan rumaysanahay in Soomaaliya aanay awood u yeelateen gaarista horumar muuqda oo la taaban karo iskaashi la'aantiis. wakiilada wafdiga halkan ku sugan gaar ahaan midowga Afrika, qaramada midoobay, Mareykanka, Turkiga iyo dhammaan xubnaha midowga Yurub. waa wax lagu farxo in magaalada Brussels aan uga hadlayno horumarka mustaqbalka Soomaaliya annagoo daba soconna kulankii miro dhalka ahaa ee Muqdisho ka dhacay 6 bilood ka hor. waxaan rabaa Soomaaliya inay hogaamiso dhammaan hababka dib u habeynta iyo hirgelintooda, waana inaan ku kalsoonnaa hogaaminta isbeddelka siyaasadeed iyo ka dhaqaale inagoo dib u habeynayna awooddeena iyo ballanqaadkeena. isdhexgalka dhaqaale ee geeska Afrika waxa uu furayaa fursado waaweyn oo ah ganacsi iyo maalgashi ay hataan dadka ku nool geeska Afrika iyo kuwa ku nool meelo ka baxsanba. Soomaaliya waxa ay si buuxda u doonaysaa inay kaalin weyn ka qaadato isbeddelada dhaqaale iyo kuwa bulsho ee ka jira gobolka. dhammaan waxyaabaha qiimaha badan ee doodana golahan iskaashiga waxaan idinka rajaynayaa inaad garwaaqsan doontaan in dawladda Soomaaliya ka go'an tahay inay mas'uuliyad weyn iska saartay abuurista iyo bixinta dakhliga gudaha si looga cafiyo deynta, loona xoojiyo amniga si loo hormariyo gargaarka bini'aadanimo, loona taageero horumarka iyadoo Soomaaliya loo diyaarinayo wadadii ay ku gaari lahayd nidaamka dimuqraadiyadda 2020. dhammaan dadaalada dawladdu waxay muhiim u yihiin iskaashigeena iyagoo lagu hagi doona xaqiijinta ahdaafteena oo Soomaaliya siinaysa inay ahaato mid xaq u leh inay hogaamiso dhismaha dawladnimadeeda. waxaanu dardargelin doonaa horumarka annagoo adeegsanayna waxyaabaha noo gaarka aan ku xooganahay iyo wadaagga kheyraadka noogu saameynta badan si dadka Soomaaliyeed uga faa'iideystaan. tan iyo markii shirkii iskaashiga bishii December ee sanadkii 2017 Muqdisho lagu qabtay, Soomaaliya waxay hore u qaaday tallaabooyin muhiim ah oo ay ku jirto siyaasadda loo dhan yahay, dib u kabashada dhaqaale, dib u habeynta amniga iyo kobcinta adkaysiga dadkeena. tan iyo waqtigaas waxaan ku guuleysanay dhamaystirka wajiga labaad ee barnaamijka korjoogteynta maaliyadda oo ay waday hay'adda lacagta adduunka. waxaan hadda u gudbaynaa wajiga saddexaad oo leh jaangooyin adag. waxaan bilownay hanaanka dib u eegista dastuurka si loo turxaan bixiyo dastuurka ku meel gaarka ah. shirka qaran ee dastuurka ayaa 13 bishii May ee sanadkan lagu qabtay Muqdisho, kaas oo ay ka soo qayb galeen dhammaan dadkii ku habboonaa si ay uga doodaan una hagaan mustaqbalka dalkeena. mudanayaal iyo marwooyin, waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo sanado badan oo isku dayo ah inaan ugu dambeyn bilownay in diiwaangelinta ciidamada Soomaaliya loo maro habka diiwaangelinta indhaha iyo faraha ee biometrika. dawladda Soomaaliya waxay u shaqaynaysaa si hufan si u horumariso nidaamka iyo hanaanka kor u qaadaya inay awood u yeelato in dadku ay helaan adeegyadii aasaasiga ahaa ee muhiimka u ahaa. dawladdeedu waxay rabtaa in dalkan oo bahwadaagtiisa ka helay taageero dhab ah uu horay u socdo. waxaan mar kale ku boorinayaa dhammaan saaxiibadeena qiimaha badan si u gutaan mas'uuliyaddaas in ay taageeraan muhiimadna siiyaan qorshaha horumarinta qaranka. waad mahadsantihiin dhammaantiin.